kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeena imtixaanaha ah maanta waxaan idiin wadnaa fanaanada Soomaaliyeed iyo qaaliladan lagu magacaabo iyo sayid cusub oo dhawaan ku aqal gali doona magaalada Nairobi Raaga Cabdi fanaanada qaaliladan iyo Raaga Cabdi oo kamid ah kuwa filim qaadayaasha ama filim soo saarayaasha ee ku nool magaalada Nairobi ayaa xiriirkoodu waxa uu soo socday in ka badan 7 sanadood iyadoo fanaankan ama sawir qaadahani uu 7 sanadood ahaa qof iska abula ah halka fanaanada qaaliladan ay dhowr guur soo martay labada fanaan ayaa xiriirkoodu waxa uu soo bilowday ayagoo yaryar laga soo bilaabo sanadkii 12 ayuu ahaa xiriirkoodii ugu horeeyay markii uu soo shacbahay isla markaana ma aysan isxalfan balse daawadayaal intaana ugu gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan halkani waa Galaangal Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambalaalkana ha hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada aan baahino aan gudagalay fanaanada qaaliladan oo kamid ah xidigaha ugu caansan Soomaalida ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii ayaa dhawaan waxa soo shacbahay inay xiriir la leedahay isla markaana xiriirkoodu ahaa mid soo socday in ka badan dhowr iyo 10 sano sawir qaadahan oo lagu magacaabo Raaga Cabdi kana mid ah kuwa ugu caansan magaalada Nairobi iyo xaafadda Islii ayaa waxa la sheegay inay fanaanada qaaliladan xiriirkoodu ahaa mid soo socday in ka badan dhowr sanadood haddaba xiriirkooda ayaa la sheegay inuu ka soo bilowday magaalada Muqdisho oo ay fanaanadu markii hore ay soo gashay ayadoon ahayn fanaanad aan dib hore ugu laabtay qaaliladan iyo taariikhdeeda iyo meesha ay ka soo bilowdo fanka meesha ay ku dhalatay iyo xagay ka soo jeedaa fanaanadan waxaa lagu magacaabaa Qaali Cabdi Dhooye ayaa la yiraahdaa aabaheed ayaa waxa uu ka mid yahay booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan wuxuu ka mid yahay ciidanka ka howlgala magaalada Muqdisho wuxuuna si gaar ah aabaheed u joogaa markii dad ugu wardambeysay xaafadda Xamarweyne gaar ahaan beerta nabadda loo yaqaan ayaa waxa uu ka mid ahaa kuwa amaankooda ilaaliya waana sargaal ka mid ah ciidamada booliiska Soomaaliya qaaliladan ayaa waxa ay ku dhalatay gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Dabagalo oo hoos tagta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxay ka soo jeedaa qoys ballaaran isla markaana reer diin ah ama qoys diimeed qaaliladan ayaa waxa ay timid magaalada Dhuusamareeb iyadoo da'yar isla markaana halka waxa ay ka gashay dugsi quraanka sidoo kale waxay halka ka bilowday barashada iskuulka qaybihiisa kala duwan sida tarbiyada iyo maadooyinka asaasiga ah qaaliladan ayaa waxa ay xilliga u soo gudubtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya fanaanada ayaa markii ay timid magaalada Muqdisho waxa ay bilowday inay sii wadato waxbarashadeeda kadibna waxa ay u soo wareegtay magaalada Nairobi halka oo loo keenay inay wax ka sii barato sidoo kalena ay ka barato waxbarashadeedana sii hormariso kadib markii ay fanaanadani timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay halkaa ka baratay koox fanaaniin ah oo reer Nairobi ah iyadoo halka fankeedii ka sii waday si qarsoodiya familkeedana aysan wada ogeyn howlaha ay qabato qaaliladan iyo sidoo kale waxyaalaha ay qabato iyadoo aysan la socon qaaliladan ayaa fankeeda waxay u wadatay si qarsoodi ah muddo ku siman 2 sanadood kadib qaaliladan sanadkii ugu horeeyay ayaa waxa ay soo qaaday heestii ugu shidneed ama sidoo kale ay ugu jeclaayeen dhageystayaasheedana ilaa iyo hadda ay si aad u sii xasuus heestaas oo ay soo saartay markii ugu horeeyay ayaa waxa la dhihi jiray Soomaali weynay sidee baan waxyeelaa sidoo kale heestaas ayaa ilaa iyo hadda dhageystayaasha qaaliladan ama sidoo kale taageerayaasha ayada ku tixan waxay si aad u dhageystaan heestaas si aadana u xusuustaan qaaliladan ayaa markii ay bilowday fankeeda waxa uu siis noqday mid si horumarsan sidoo kale waxay isbarteen ama ay xiriir la sameysatay fanaan kale oo qoys faneed ah sida fanaanka ay hadda kala tageen ee Liban Jigjiga ayaa qaaliladan si fiican u soo gacan qabtay isagoo fankeedana si aad u sii horumariyay qaaliladan ayaa wixii xilliga ka dambeeyay waxay isguursadeen Liban Jigjiga ayagoo nolol wadaagay balse waxba ma aysan isku dhalin fanaanada iyo Liban Jigjiga intaba qaaliladan ayaa waxa ay kala tageen Liban Jigjiga sanadkii 2017 isla markaana isku dhacoodu salka biyo dhigtay markii ay khilaaf xooggan soo kala dhaxgalay qaaliladan ayaa ilaa ay xilliga wixii ka dambeeyay waxa ahayd qof aan lahayn xiriir ama sidoo kale guur aan lahayn balse sidii aan hore inkugu sheegay qaaliladan iyo
Raaga Cabdi ayaa waxay ahaayeen kuwo horay isku yaqaana yaraantoodii sidoo kalena ku soo koray iskuulna wax ku bartay isku xaafadna ka deganaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Taleex oo ay labadoodu deganayeen. Qaaliladan ayaa hadda waxay dib ugu laabatay jacaylkeedii hore isla markaana waxay hadda xiriir wanaagsan leeyihiin Raaga Cabdi oo ka mid ah xidigaha ugu caansan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo isagu laftirkiisu markii uu ku ogaaday inay qaaliladan hadda tahay qof madax bannaan isla markaana ay kala tageen saygeedii hore wuxuu u soo duulay magaalada Nairobi isagoo magaaladaasi ugu yimid saaxiibtiisa hore halkaana ay ka bilaabeen jacaylkoodii muddada soo socday sidoo kalena ay xiriirkoodii kasii bilaabeen mar kale ay dib u cusboonaysiisteen. Qaaliladan iyo Raaga Cabdi ayaa hadda waxaa xiriirkoodii noqday mid soo gabagabooba sidoo kalena waxay kusoo biyo shubatay inay dhowaan ku aqal gali doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya siday noo xaqiijiyeen dadka agdhow qaaliladan ayaa waxay u xaqiijiyeen shabakadan Galaangal Media in fanaanada iyo Raaga Cabdi labadooduba ay dhowaan ku aqal gali doonaan magaalada Nairobi ee sanadka cusub isla markaana hadda arooskoodii laga qaban qaabinayo magaaladaasi. Sidoo kale dhalinyarada iyo fanaaniinta ku sugan magaalada Nairobi ayaa isku diyaarinaya inay si aad uga qayb qaataan meherka iyo guurka dhex mari doona lamaanahan Raaga Cabdi iyo qaaliladan oo xiriirkoodu ahaa mid soo socday in muddo ah. Haddaba fanaanada qaaliladan ayaa waxa ay tahay kuwa fanaaniinta Soomaaliyeed ugu codka macaan sidoo kalena waa fanaanad leh talenti sida heesaha daadiska iyo jacaylka intaba kuwa wadaniyada ku dhisan intaba waa fanaanad ku luuqeyn karta sidoo kale waxay markay cod la'aan heesayso fanaanadani hibo u leedahay in ay codkeedo kale uu yahay codkii Allah u naxariistee Xaliimo Khaliif Magool oo ah eedada qaaliladan ayaa sidoo kale waxa ay ka soo jeedaa beel weyn oo fanka Soomaaliyeed kaalin ku leh sida fanaanadani ay horay u sheegtay waxa ay ka soo jeedaa beel weynta habar gidir gaar ahaan Cayr ayay ka soo jeedaa. Fanaanada ayaa waxa ay ka dhalatay beesha Cayr gaar ahaan waxay isku jufay yihiin fanaanka Soomaaliyeed ee Xasan Aadan Samatar oo ka mid ah kuwa ugu codka macaan ama ugu hanka weyn fanaaniinta Soomaaliyeed laguna magaca jecel yahay. Fanaanka Xasan Aadan ayaa waxa uu adeer u yahay qaaliladan sidoo kale fanaanadan waxa ay ka soo jeedaa beesha ay ka soo jeedo Magool oo sidoo kale ah hobaladii codka qarniga ee dawladii dhexe Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ay u aqoonsadeen inay tahay fanaanada codka ugu sidata xagga hablaha halka raggana oo u qaaday fanaanka Cumar Dhuugle oo isaga laftirkiisu mar loo aqoonsaday hobalka codka. aan ku sii socday barnaamijka fanaanada ayaa hadda waxa ay horay u sii waday fankeedii sidoo kale waxay dhawaan soo saartay hees ka hadlaysa ayada iyo Raaga Cabdi oo uu u sameeyay fanaan caan ah oo Soomaaliyeed. qaaliladan ayaa hadda waxay noqon doontaa marwada Raaga Cabdi sidoo kalena waxay soo gabagabay doontaa ama ka soo dhaxbixi doontaa garoonkii israadsiga ee dhalinyarada iskaabulada ku jireen waayadan. garoonkan ayaa waxaa kasii faaruqaya fanaaniin badan sidoo kalena waxaa hadda garoonkaas ka baxay fanaanada Rasmi Rays oo dhawaan ku aqal gashay magaalada Nairobi. waxaa kasii horeeyay fanaanada Sacdiye Siman oo sidoo kale iyaduna garoonka ka howleeshay oo ay isku jufay yihiin qaaliladan. dhanka kale waxay qaaliladan noqon doontaa fanaankii saddexaad ee magaalada Nairobi ka xarooda qabowgeeda. waa haddii arrintan ay sii socoto waxaan idin soo gudbin doonaa faahfaahinta iyo wixii ka soo kordha barnaamijka qaaliladan iyo xafladda arooskeeda annagoo ah Galaangal Media iyo tiimka Galaangal Media dhammaan waxay hambalyo u dirayaan qaaliladan iyo saygeeda oo dhawaan ku aqal gali doona magaalada Nairobi. waxaan idin leenahay guuleysta ubad qeyr qaba iyo awlaad baariyana kala hela. waa ku mahadsantahay daawashadeena iyo sida aad noogu taxantihiin. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada aan baahino.